waxaa salaataada u diyaara cutubyo ka tirsan ciidanka ilaalada xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo dhawow. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed ayaa ka qayb galay munaasabad tababar loogu soo xidhay ciidamada ilaalada xeebaha dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka dhacday xarunta taliska guud ee caasimadda Hargeysa. ugu horeyn munaasabada tababarkaasi waxaa ka hadlay Kabtan Maxamed Cabdilaahi Cumar waxaanu sharaxay waxyaabihii ay ka faa'iideysteen muddadii uu tababarkani socday. Programkan wuxuu ka kooban yahay wax loo yaqaan database kaas oo waxyaabaha dhammaan lagu kaysanayo waxuu ka kooban yahay wax loo yaqaan dashboardka oo isna aynu hore u soo aragnay kuleyntii isticmaashada garanaysa waxuu ka kooban yahay emailiska oo emailadu wax isku dirayay waxuu kale ka kooban yahay wax loo yaqaan pie chart waxuu kale ka kooban yahay wax kale oo loo yaqaan columns iyo charts qaybta koowaad waxa uu sameeyaa programka wax loo yaqaan waxa isku xidhaya sectorskii iyo headquarterkii ciidanka headquarterkii sida berbera siilac waxa kale oo sameeyaa programka waxa loo yaqaan information sharing informationkii ayaa lagu wadaagayaa dhammaan departmentskii maxay ahay sectorskii waxay ku wadaagayaan informationkii iyagoo isku wadaarsanaya waxa kale oo programkii faa'iidooyinkiisa kamid ah isagoo sameeynaya waxa loo yaqaan data storage datadii ayaa lagu storage gareynaya taasoo noqonaysa data long storage oo in muddo ku jiraysa marka loo baahdana laga soo saaran karo. taliyaha guud ee ciidanka ilaalada xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland Arminaal Maxamed Xuseen Faarax Xiirane ayaa ka waramay muhiimadda uu tababarkan xambaarsanaa. mudane wasiir waan kaaga mahadnaqaynaa xafladda aad nagala soo qaybshay maanta meesha programkan ciidanka dhameystaan waxa uu barnaamijka asaas ee lagu faahfaahiyay iyo isgaarsiintii oo maanta shahaadooyinka la siin doono waxa weeye ciidanka ilaalada xeebuhu waa ciidan hadeer waxa weeye saan ku wadno kobcaya waxaan hadda dhamaadayna wasiir oo wixii hore u socdo dhamaaday oo dhamaystiroo dadalgelinay waxaan leeyahay wasiir ku soo dhawow. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed ayaa ciidanka u soo jeediyay aqoonta ay barteen inay uga faa'iideeyaan qarankooda tayada ciidankana kor loo qaadi doono. mandaqadeennan waxaa aad culays badan ugu haya dadkan argagixisada ah waxa ka socda maxaan ku dhahdaay hubka suuqa madow ah maxaan ku dhahdaay badaha ka imanaya meelaha aan inaka hayn u socda waxaynu u baahanay markaa inaynu culays saarno laguna ilaaliyo laguna dabaqo aqoontii iyo cilmigii muddadan idin socday maxaan ku dhahdaay ay idin barateen ciidanka waynu tayeyn doonaa tiradiisana waynu kordhin doonaa laakiin mar walba tirada waxa ka horeysa tayada ka horeysa marka tayo jirto ayaa hawl la qabanaya taliskan guud ee ciidankana waxaynu u baahannahay inuu kormeer badan la sameeyo aqoontana uu u daadajiyo saldhigyada iyo baraha ilaalada ee ciidanka xeebaha ee ku dhararan maxaan ku dhahdaayay xeebteena. sidoo kale intii munaasabadaas socotay waxaa halkaasi ka hadlay macallinkii tababarkan bixinayay waxaana halkaasi shahaadooyin iyo abaalmarino kale lagu guddoonsiiyey ciidankii qaadanaya tababarkan. geesta kalena wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa kormeer ku soo maray qaybaha taliska guud ee ciidanka ilaalada xeebaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka kooban yahay isagoo warbixin ka dhageystay mas'uuliyiintii ku sugnaa xafiisyada kala duwan ee uu booqashada ku soo maray.